wasiirka hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland Injineer Axmed Cali Ubaxle oo telefishinka caalamiga ah ee kula hadlayay deegaanada gobolka Buuhoodle ayaa ka hadlay xaaladda abaarta gobolada bariga Soomaaliland sidoo kale wuxuu baaq u diray shacabka gobolada bariga oo suluugay xukuumadii uu soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi waxaanu carabka ku dhuftay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi soo dhisay jirto muddo 100 cisho gaaraya balse aanay degdegin soo maray bariga Soomaaliland waqti laga baqayo hadda in abaaro ama dadku ay werwer uu ka hayo in abaarihii markale soo noqdaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaa inuu farash khayr qabo iyo roob raxmaad qabo oo ilaahay u shubo arinta labaad aan doonayay inaan xuso waxa weeye dadka deegaanku wax muddo inuu xoogaa yara buuq ama xant ay jirto waxaan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo dawladdu 100 maalmood ma jirin oo 100 maalmood wali ma gaarin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dawladda xisbiga kulmiye ka samaysantayna ballanqaadyo fara badan bay fulisay qaaday ballanqaadyadii ay qaadayna wali waqti ay fuliso may gaarin laakiin hawsheedii bay ku jirtaa deegaankan ka soo jeedana waxaan leeyahay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta inoo ah wasiir waa nin caaqila waa nin suldaana waa nin wasiir maanta jaga balaaran fadhiya waa nin ka adag xilka reerka metelina kara reeraha dhamaantood marka ma qabo horta halka in xilinaga maqan yahay oo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sida wax loo qaybiyay ninkii ugu haboonaaba wax inoogu dhiibay insha Allah ta'ala isaguna si wanaagsan buu xumaarayn doonaa waqtigeedana waynu sugaynaa dawladana 100 maalmood wali ma jirsan hore weeyay waqti hal la siiyo xaaladaha ku xeeran madaxweynaha waxaad moodaa in waqtigeena doorashada ku jirnaa in barnaamijkeenu ahaa in maanta oo biri ka fiican macnaha biri maanta ka fiican laakiin madaxweynihii iyo dawladdii hadii lagu mashquuliyay in qof waliba doono inuu isaga la shiro arko madaxweyne waqti uma helayo oo arrimihii kale ee dalka xal kaga gaaro marka waxaan jecelahay in madaxweynaha iyo dawladda waqti loo siiyo inay arrimaha dalka yaala iyo horumarkii dalka aynu hore u dhaqaaqi lahayn halkeenu shalay joognay ka dhaqaaqi lahayn in waqti loo siiyo inta taa la gaarayo oo aynu qof waliba waxay la tahay wuu heli doonaa waxa uu doonayay laakiin yaan madaxweynihii laga mashquulin danihii ummaddu caamka u lahayd oo dan shakhsiga lagu mashquulin waxaan leeyahay ilaahayna gargaaro waxaynu liibaan gaaraynaa markaynu isu garawno waxaynu horumar gaaraynaa markaynu wada shaqeyno leebadii sicir bararka iyo uu keenay oo shaqadeeda dawladda haysaa jirta wax badan baa isbedeli doona samirna hal la yimaado madaxweynaha iyo dawladdiisana waqti hal la siiyo cidda sad ka maqan filaysa inuu sad ka maqan yahayna ha ku qanacdo inaanay waqtigii sadka la dooni lahaa aanay ahayn qof waliba gaarkiisa meel isu taagi lahaa ummaddu maca jamaaci wax ku wada qabsataa waxaana leeyahay dadka deegaankayga aan ka imi intaanu soo wada hadlayna waan soo wada hadlay inteena dhimanna waxaan gaarsiinayaa in aan sad inaga maqan oo maanta aynu u baroor diiqna aanu jirin waxaan ku qancinayaa deegaankan ka soo jeedo oo kaambeynkii ololaha doorashada qayb lixaadle iyo qayb libaaxba ka qaatay xoolo ku bixiyay hanti ku bixiyay waqti geliyay runtii aad iyo aad u dadaalay waxaan ku qancinayaa inay lay weydiiyo maxaa dawladda aynu uga mid noqon weynaa ama qaarkeen uga mid noqon waayeen waxaan ku qancinayaa waynu ka mid noqon doonaa dawladdu maalin lama wada dhiso maanta waxaan anigu shakhsiyan ku faraxsanahay in kooxda dawladda ka samaysmatay 90% ay asxaabteedii yihiin rag aanu wada shaqaynay ama isgaranayno in tacabkii aynu gelinay iyo sidaynu isu muujinnay in laynooga cawil celiyo waynu heli doonaa qofku noqon doonana ilaahay subxaanahu wa ta'aala og anna ku dudi maayo mid kaloo ku dudayana ma ogi xaaladda abaaraheed waxiga weydiisay waxaan aad iyo aad u jecelahay dawladdana ugu baaqayaa iyo hay'adaha samafalka iyo dad ilaahay subxaanahu wa ta'aala samafal sameeya laakiin yacni in cid loo diro soo asas garaysa xaaladdu sida ay tahay siyaasi Axmed Cali Ubaxle ayaa isagu noqonaya shakhsi waqti iyo dadaal badan geliyay waqtigii xisbiga talada dalka ay kulmiyeen ololaha kaambeyga ku jiray isagoona ka ololeynayay gobolada Saraar iyo Buuhoodle waa yaal ciga Bukhari Ariel TV Buuhoodle